ninkan arxan laawaha ah ayaa faraska miskiinka ah ku qasbaya inuu jiido gaari xamuul ah oo aad u culus isagoo weliba si naxariis darro ah ugu garaacaya karbaash. Faraskii oo aad u haraadsan ayaa arkay qasaalad biyo ah oo waddada dhinaceeda taala, balse ninkii ayaa inta biyaha ka qaaday hortiisa ku cabay si uu u ciilkan biyo xayawaanka. Markii uu dhammaystay xitaa dhibcihii soo haray ayuu dhulka ku daadiyey. Faraskii ayaa aad uga tiiraanyooday falkan foosha xun, isagoo ilmeeyey dareen la'aanta milkiilihiisa. Faraskii wuxuu taagan yahay meeshiisii isagoo quus ah, balse ninkii ayaa haddana bilaabay inuu karbaashkii la dhaco si uu u dhaqaajiyo. Inkastoo xayawaanku uusan taag u hayn inuu tallaabo qaado, dhacdadan waxaa meel dhow ka daawanayay Bobeye iyo Olive oo aad uga carooday. Bobey ayaa u soo cararay si uu ninka u celiyo, balse ninkii xoogga weynaa ayaa isagana karbaashkii la dhacay. Faraskii oo dareemay in loo soo gurmaday ayaa Bobey dhunkasho siiyey, sidoo kale Olive ayaa iyaduna faraska u naxariisatay. Laakiin ninkii ayaa Bobey kor u qaaday oo ku dul tuuray gaariga dushiisa. Bobey inkasta oo la garaacayo, waxa uu si degan u cunayaa moos, isagoo qolofteedana dhulka ku tuuraya. Xaaladda ayaa sii xumaatay markii Olive ay iyaduna soo faragelisay. Olive waxay ku simbiriirxatay qoloftii mooska iyadoo samaysay dhaqdhaqaaq qosol badan. Ninkii ayaa markaas bilaabay inuu moosas badan ku tuuro gabadha si uu ugu maadsado. Bobey ayaa isku dayay inuu dagaalamo, balse waxaa lagu dhex aasay tuulmo moos ah. Ninkii arxan laawaha ahaa ayaa haddana u soo jeestay faraskii oo uu ku dhuftay feer aad u culus, taasoo faraska madax wareer ku riday. Nasiib wanaag, Bobey wuxuu gaariga dushiisa ka helay kartoonkii uu ku kaydsanaa isbinaajka spinach. Markii uu cunay, jidhkiisa waxaa galay awood aan caadi ahayn iyo murqo bir ah. Bobey ayaa soo dhex istaagay ninkii iyo faraskii. Feer kasta oo ninku ku dhufto Bobey waxba kama qaadin, ilaa ninkii uu daalay oo uu neeftu ku dhigtay daal awgiis. Hadda waa markii uu Bobey jawaabi lahaa. Hal feer oo xoog badan ayuu ku dhuftay ninkii weynaa, kaasoo si xun u gariiriyey oo dhulka ku riday. Faraskii oo aarsanaya ayaa isna ku biiray garaacista. Ugu dambayntii xaaladdu way isbeddeshay. Ninkii ayaa lagu xiray gaariga si uu u jiido, halka faraskii uu karbaashka hayo. Bobey iyo Olive-na ay raaxaysanayaan.